Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheen qiimaha iyo qaayaha badan oo meel kasta aad dunida dacaladeena ka joogtiin waa idin salaamay. Maanta waxaa idiin wadnaa bariis iyo hilib insha Allah. Hilibka isticmaali doono waa hilib geel qiyaastii 1 kiilo insha Allah. Maqliga ku shubaneynaa ama digsiyad ama surfida qofka suu yaqaano waa kaya waa ku soo shubanay insha Allah. hilibku nuuciisa waa hilib geel insha Allah 1 kiilo. insha Allah waxaan rabnaa inaan karino. Hadda waxaa ku shubaya waxay tahay waa 2 galaas oo biyo ah insha Allah. Qiyaasta qofku ugu bislaan karo waa inaa gaarsiisaa insha Allah. inta qiyaasta uu kugu bislaan karo maasha Allah. Hadda waa kana hilibkeeni wuu noo soo bislaaday kali 2 galaas kuma shubin biyo badan u celiyo kadib insha Allah. intuu kugu bislaan karo waa inaa wadid hilibku markuu biseel noqdo u kala dhaco insha Allah. waa kaya insha Allah saxana ku soo shubanay halkaasna jibsiga noo diyaarsan insha Allah. Xawaajiyaasha rabnaa ku darno huruud, kaarimiid iyo kaari powder caadi ah iyo maraq digaag insha Allah. halkaasna meesha ku diyaarsanay intaas si fiican ugu qaseynaa dhex gelinina waa hilibkii noo soo bislaaday. Arbaadan insha Allah inaa wax marmarino si fiican u dhex geli u gaarsi insha Allah. digsigana wax noogu haro waa maraq insha Allah. sidaan sameyn doono sidoo noogu soo bixi doono insha Allah waa arki doonaa. isla socod wanaagsan aad daawadayaasheen insha Allah. waxaan iga rajeynayaa subscribe noo saari doontiin, share aad dhihi doontiin, like-ta nagu caawiya insha Allah. waxaa wax kunana waa idinka insha Allah. waxaan rajeynayaa inaa subscribe nagu caawin doontiin, like-ta, share-ta, comment-iga dhiirigelinta waa xagiina insha Allah. waa kana hadana waxaa taawadii dabka saarane waxaan rabnaa saliida ku jirto soo kululaatay insha Allah. waxaan rabnaa inaan hilib guduudino xoogaa yar laakiin zaid uma guduudinayno inuu zaid noogu adkaado ma rabno insha Allah. xoogaa yar qudaartii aan soo marina rabnaa inaan ku shiilno insha Allah. marka dhinaca kale hadana u gadinaynaa maasha Allah. haddii aad tijaabishiin insha Allah waa huba inaad ka heli doontiin insha Allah. guriga oo ku dhici doono biis hilibka daraada rabnaa inuu ku dhici doono insha Allah waa huba. hadda khiyaare dhiirigelinta waa xagiina insha Allah. labada dhinac markuu kusoo guduutaa ka bixin doonaa zaid mayo kaaga guduudan. intuu zaid u guduuto wuu ka adkaana adee uu ka noqonaa hilibka insha Allah. labada dhinac guduud yar markaa ka dareento ka bixi insha Allah. halaas leeli doonaa intaas leeli doonaa insha Allah. sorry hadana waa kaya maasha Allah. guduud xalwo nooga soo baxay. guduud zaidna ma noqonin inuu guduud zaid noqdana lama doonayo insha Allah. hadana waa ka bixinaynaa insha Allah. wixii dambe oo noo xigi doono waa isla arki doonaa. maasha Allah. hilibkeena quruux biseelna waa inaa ka dhigtaa. hilibka oo adeeg iyo haddaa sii dubtid uu ka adkaanayaa. waxaa ku dadaashaa inuu hilibka biseel noqdo uu kala dhacdhaco insha Allah. haddii kale hilib adag haddii aad sii shiishid bismillah dee ka keento waxaana loo dhahaa ku dadaal marka hilibkana si fiican u bisleysid oo kala dhaco
insha allah. Kadib markaasiytii waa dubi kartaa waxaa rabtaa ku samayn kartaa maxaa yeelay hilibku wuu bisil yahay. Hadda maasha Allah taawada saliidda kasoo gediye waxaa rabaa maraqii digsigii ku haray inaa ku shubo aa ku kariyo cabaar insha Allah si uu jileec noogu noqdo insha Allah. waa huwa inaa ka sheekay doontiin insha Allah macaan noo noqon doono anaa hubo anaa soo tijaabiye insha Allah. waxaa jeclaa idinka inaa ila tijaabisaan aa ila eegtaan insha Allah. haddana waa kaya maraqii cabaar ku shubaaya intaas isku karinaya. dabkan waxa ugu dhigay dhexdhexaad si hadii dabka oo dheer aa ugu dhigtid wuu ka dhaqso gursana lama rabo marka dabka dhexdhexaad ugu dhig si uu isku dhex galo hilibkii iyo maraqii hadda aa ku shubtay wuxuu noqonaa guduud oo jileec ah noqonaa marka insha Allah. waa ka maasha Allah kasoo nagu soo baxay maasha Allah. hadda wuxuu noqday jileec jileec uu noqday maraq fiican inaa ku shubtid waaye insha Allah. hadan waa kaya bardhadii gooni usoo duba ku shubay iyo basashii maasha Allah. haddana waxaa karsanaynaa bariiskeeni waxaa ku darsan waa xawaaji iyo qarfo iyo heel iyo basal iyo kabsar caleen insha Allah iyo maraq digaag. haddana waa kana bariiskeena cabaar oo biyo noola yaalo waaye bariisku wuxuu ku fiican yahay cabaar inaa biyo la dhigtid biyo badanna markaa qaadanayo hadhow furfur qurux badan wuu ku noqonaa insha Allah. haddana waxaan kusoo shuban doonaa insha Allah maraqii ka cabaar shiilno maraqii oo diyaarsanaa insha Allah. dan basal yar gooni u shiila waaye insha Allah. bariis korna ugu qurxiyo rabo waa ka hadda bariiskeeni saasoo noogu soo baxay. dhanka tastiga waa dhankeyga shidnigiisii waa ka saladkii furuudkii maasha Allah biyihiisa cabitaanka insha Allah. waxaan rajeynaa fiidiyowga ku kulmi doono nabadii.